u diidan inuu lacag gacanta u gasho. imaaraadkii xataa waxay diidan yihiin in asaga iyo sicdani ay heshiiyaan, waayo asaga iyo sicdani labadooda imaaraad wey, iyo axmed madoobe hadda la heshiiyey imaaraadka. xataa ma rabaan nin walba inuu ninka kale colaad u haayo, ay ka dhex faa'iidaystaan, kana ay gaar ugu tagaan, dhul ay ka qaataan. axmed madoobe hadda saldhigay ka samaysteen labadii jasiirado ku tiilay kismaayo, ku tiilay kismaayo banaankeeda jasiiradii ku yeelayna juulaa jawaa iyo tii kale iyo waa qaateen, imaaraadka qaatay. 60 hektar oo dhul ahna wuxuu ka qaatay golweyn oo ka qaatay meesha lahaye goobweyn oo webiga uu kaga daro, badda kaga daro. halkaasna 60 hektar dhul laga siiyey imaaraadka. saldhig ciidanna waxay ka samaysteen meesha la yidhaahdo kismaayo ka samaysteen. maamulada kale sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudugna waa loo soo bandhigay. xasan wuxuu yidhi imaaraadka ka faa'iidaysta, saldhigya siiya, ciidamada idiin tababaraan. kolleyba inta aan ogsoonahay koonfur galbeed waa diiday arrintaas, idaa waa diiday. waxay dheheen anaga ciidankeena waa haysanaa, waana loo tababara, annagaa isku filan, asaga yuusana soo gelin. marka weli waxaa go-aan laga sugaa hirshabeelle iyo nimanka laleeyahay galmudug inay iyaguna ay bixiyaan, saldhigya bixiyaan, imaaraadku ay degaan. marka dhaqaalihii xataa imaaraadka markuu arkay nimankan iyaga xaalkooda, xataa lacag inuu siiya kaasha waa ka caaga, waayo wuxuu ogaaday in waxba aan lagu qabayn, iyagu ay qaadahayaan. nimankan cadaankii miisaaniyadda kabi jiray ee world bankigi iyo IMFT na arrintoodu way arkeen sida ay tahay, dibay u degeen. marka waxaa dhacday maadaama dakhligii ay dheheen naloo badiyo, oo kabkii waagii hore farmaajo la sii jiray 9 milyan oo ahaaye, hadda ayaga waxaa looga dhigay 14 milyan. 14 milyan waa xujo. waxaa lagu xujiyey marka waa inaad dakhliga intuu shala jooga aad ka sarmeys waa inaad dhaaftaan. marka mataqaan inay dhaafaan waxay kaliftay marka inay canshuurtii kordhiyaan, oo canshuurtii ay ka dhigaan 200% inay canshuurta saaraan. ganacsiga halkaasi ayaguna ku joojiyeen. doodaasaa socota. dekada shaqada baryahan waa yaraatay. 14 dekada wax ka soo baxay habaatay ma jiraan. waxay xisaabteen hadda ay ganacsadu xisaabsadeen, haddii ay dekada garacad aadaan oo ay ka soo degsadaan oo baabuur la soo saaro oo muqdisho la keeno, inay ka jaban tahay taas. intay garacad kala soo degaan ogsoontiin gaalkacay korkeed ku taal, ay safar la soo galaan, ay muqdisho keenaan, inay uga qiimo yar tahay qiimaha hadda la saaray, canshuurta la saaray ee dekada la saaray. intaas maxay tahay marka? waxaa weeye in dakhli badan ay helaan. dakhliga badan marka ma laga fikiray shacabka masaakiinta ah ee ninka ganacsatada ah marka uu bixiyo lacagtaas, isaga uu bixiyo, uu dekada ku shuba lacagtaas uu bixiyo, canshuurtaas zaa'idka uu bixiyo, ninka ganacsatada ah intuu la soo baxa alaabtiisa wuxuu keenaa bakhaarkiisa. markuu bakhaarkiisa keeno iyo wuxuu qaadanaa calculatorkiisuu qaadanaa. marka haye sheegan meeqaa la canshuuray, intaasaa la canshuuray, haye ku dar, meeqaa transportationa ku dar, meeqaa markabka u qaatay ku dar, meeqaa dekadii hore aad mataqaanaa aad ka soo bixinaysa qarash kaga baxday ku dar, shaqaalihii dejihaya ku dar, baabuurkii ijaarkiisa ku dar. markuu intaas ku darsado ayuu haddana wuxuu sii saaray ninkii ganacsada ahaa faa'iidadiisi. markuu faa'iidadii sii saarto, suuqay badeecadu u soo baxaysaa. sidaa lagu soo gatay, lacala ayadoo qaali lagu soo gatay, tafaariiqlaa soo gatay ama dukaanlaa soo gatay. tafaariiqlihii markuu soo gatay dukaankiisuu keenay, asna wuxuu qaatay calculator, meeqay kugu filan intaan, meeqaa xamaaliya intaan, dukaanka kelidiisa intaan, isku dhufsaday faa'iidadu saartay. qofkii marka maskiinka ahay soomaaliga ahaa, ama hooyadii masaakiinta ahedoo suuqa ku gudaysay yaayada, ama qofkii maskiin ahayoo xamaali ahay, kii shaqaalaha ahayoo fuundi ahayoo dhagaxa jebihaya, kii faryaamada ahay, ilaaha idinku dhaashay. marka haddii kiiladii ay noqoto sokor ah $2 iyo abaaf ay tagto, ma la gadan karaa waaye. bariiskii kiilada $2 iyo abaaf tago, qofka maskiinkaa ma gadan karaa waaye. kuma fikrin ayagu taas, kuma fikrin. waxay ku fikreen dakhligan ayagu u soo xaroohaya iyo kabka 14 milyan ah inay isku jaangooyaan, oo ay yidhaahdaan intaanan soo aruurinay
intaanan loogu kaba kow arrintii puntland aad diiday iyo puntland waa been waa marmarsimo puntland loo dan leeyahay waa marmarsimo la rabo in dagaal lagu qaado puntland waxaa loo socdaa waa dekadaas garacad horaan u sheegnay shalaan sheegnay nimankan lacagaha waxay u joojiyeen waxay u joojiyeen markii la magacaabay hanti dhowrka guud ee qaranka ninkaasay ka shakiyeen maxaa la rabaa hanti dhowrka guud ee qaranka waa inuu ahaadaa nin aqoon u leh oo aan axsaab iyo xisbi ka tirsaneen aqoonna u leh shaqadaas isaga ah marka nimanku waxay ka warqabeen gaalida ogaadeen in ninka la magacaabana loo kala wariyey uu ahay isla markaasna dadkii xasan sheekh kambeynka ugu jiray ee u ololeyhayay inuu yahay nabaa soo baxday aqoontiisa aqoon weliba wariyebe heligo iska ahaaye xataa wariye fiican ma hele maanta xamar jaamacad oo saxaafadda lagu bartaa ma jirte waxaa iska ahayd waa hadli karaa waa waxaad arteen wariyaasha aragteen oo soo warihaya sacaa la kufsada inta meel soo istaaga sacaa la kufsada soo warihaya waay wariyaasha arkaysaa damiirkooda iyo aqligooda iyo garashadooda intaas la egyahay markay arkeen ninkaas la magacaabay nimankii gaaladaha iibaanka ka baxay boorsooyinkooda qaateen arkeen aqoontiisa arkeen su-aalo weydiiyeen shahaadooyinkiisa weydiiyeen eberaan ahay weligaa banki kama shaqeynuu yiri anigu wariyaan iska madax bannaan ahay meeshaan la ii magacaabay arrintii dib mataqaana ula noqdeen soo baareen soo ogaadeen waxay dhaheen laga raalli ahada ninkaan mujadiin wax ku aamini mayno mashaariicna u dhiibi ma karno arrintaa waa musuq maasuq xeerkii la soo marana ma soo marin ninkan baarlamaanka ma soo ansixin ninkan waa nin garab ka tirsan oo xisbigaas ka tirsan nin madax bannaan ma ahanoo oo la yaqaan oon xisbi u shaqayn aqoontiisina leh cilmigiisana lama keenin laakiin nin garab ah oo ay rabaan in wax lagu dhaco ayaa u soo baxday taasaa keenta marka in dhaqaalihii lagu joojiyo marka ciilkaas jabkaas ku dhacay ayay waxay kala dul dhaceen puntland kala dul dhaceen ay umarmasimoo hayaan ninka leeyahay siciidani waa intaas wax kale maahane siciidani wuxuu ka joojiyey midnaba ma jirto nimankan waxaa la isu qabsaday arrintan iyada ah aan hadda idiin sheegayo hantidhulkooda qaranka marka waxaan idin leeyahay soomaaliya waad arkaysaan arrintii dinacafintana dib u dhacaa ku imaan doona haddana dhaqaale ma jiro shaqaalihii dowladda bar lacag aan qaadan ilaa haddan qaadan bara lacagtii qaatay inta kale waa ka go-da lacagta waa ka go-da waxay loo noqon doonaa 2016 iyo 2014 sida la ahaa ayuu maanta dalka taagan yahay iyo weliba ka sii xun ayuu taagan yahay ilaahay waxaan baryaynaa in ilaahay faraj qeyr qabo ummadda ilaahay u furo dadka masaakiinta ee dhibanna ilaahay faraj u furo wixii dhibaato ku wada ee dibadaabyo ku wada ee sicir barar iyo dhib ku jira dadkan muqdisho ayagaa tabcaan dadku liitaane hadda waxaan arkayay ilmo yararka ilmihii bajaajada watay hala soo buufiya lili wiilkii safow galay $35 bixi oo buufiska ah $35 laga qaaday haddana waxaa lagu xujeeyey laalush inoo baxsho $5 inta ku bixi waa ku hormariha xagga $5 ku bixi maya $2 oo kale ku soo dar waa lagu buufiyaa kooban ka dhigayna laban ka dhigayna masaakiintii shaqada halkaas ku istaagtay reer muqdisho marka waxay dhihi jireen canshuurteena la cunaa lacagteena la cunaa 3 milyan xamil lacagteena la cunaa iyadoo taasna ay been ahayd oo canshuurta laga qaado muqdisho ilaa iyo baydhabo ilaa iyo gedo ilaa iyo kismaayo raashinkaas taga ay qofkii alaabtaas la canshuuray waxaa canshuurtaas bixiya qofka ugu dambeeya ee isticmaala ninkii intay dukaan taga soo gata sokorta kiila sokorta soo gata ee gurigiisa keena ku karsada ayaa ah ninkii lacagtaas baxshay waayo lacagtaas canshuurta ah ganacsatadii faa'iidadu saartay canshuurtii u saartay waxaa kala wareegay dukaanlihii tafaariiqu gaday asagana wuxuu saartay wixii ka baxo qarashuu saartay maca canshuurtii laga qaado saartay qofka miskiinka ah ugu dambeeya gacanta ugu dambeysa qofkaas ama baydhabo ha joogto ama muqdisho ha joogto ama marka ha joogto ama geda ha joogto ama kisma ha joogte qofka ugu dambeeya
isticmaalaya shaygaas ayaa canshuurta bixiya waana sida ay tahay qaacidada rasmiga ay tahay oo markii aqoon lagu miisaamo waa sidaas canshuur waxaa bixiya qofka ugu dambeeya isticmaala baxsha marka reer muqdisho ayagoo beentaas loo sheegay ayay dhihi jireen canshuurteen yaa la cunaa canshuurteen yaa la cunaa waa waray waxaan leenahay reer muqdisho maanta xaalkiina ka warrama saacaddan caawa aan joogno ka warrama xaaladiina allow yaa qulubtiina daalacda allow yaa maanta qulubtiina daalacda saan ma moodeen aad dhibaataan ugu sii badatay sicir baraan ugu sii batay jidadkii shalay qaarkood waa fureen hadda qaarka cusbaa lasii xiray bajaajtii masaakiinta iyadoo wiilashii tahriibka laga celihayo mootadii loo gaday waa kuwaas kuma shaqaysan karaan wadooyinkii qaar badan lasii xiro hadda aan la mari karin maalmaha qaarkoodba waa magaaladu waa qam oo lama socon karo waa bandow canshuurtiina hadda raashinkii waxaa laga yaabaa inuu 200% uu kor u kaco meeshii kiilada sokorta ahayd ay $1 lacag ka soo noqonaysay waxaa laga yaabaa in kiiladii sokora ay $2 iyo cabaaf ay tagto maskiinka ma gadan karaa marka xamaaliga ma gadan karaa wey waa maya marka